السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن داوديال meel walbo ay joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay geyiga Soomaaliya qodobada degdega ah waan idin soo gudbin doona waxa qayb ka noqon doona boqor Buurmudow oo wakiil ka ah beesha Habar Jeclo iyo sidoo kale suldaanka guud ee beesha Samaroon oo kulan gaar ah ku qaatay magaalada Boorame ayaa abaabulaya qorshayaal dagaal oo ka dhana beesha faca weyn ee Ciise haddaba waxaan ku soo gudbin doonaa hub iyo ciidan la sheegay in si qarsoodi ah loo geeyay magaalada Boorame dagaal laga cabsi qabo inuu mar kale ka dhaco koonfurta iyo bariga magaalada Boorame ciidanka beesha Ciise oo galay heegankii ugu sareeyay iyo xog walbood halkaas uga baahnayd ayaan kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xasaasiga ah oo aan ku soo gudbin doonana waxa qayb ka noqon doona ugaaska guud ee beesha Ciise oo goordhow kulan degdeg ah isugu yeeray dhammaan saraakiisha ciidanka beesha Ciise ee ku sugan gobolka Awdal kulanku hadda waxa uu ka socdaa gudaha magaalada Diridhabe maxaa laga wada hadlayaa waan ku hayaa waxaan kale ku soo gudbin doonaa Somaliland oo sheegtay in ay ka hortagayso diyaaradaha Djibouti ee hawada Somaliland sida sharci darrada u soo galaya qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada aan ku bilaabo qodobkeena ugu horeeya ee qorshayaal waaweyn oo ka dhanna beesha Ciise ayaa magaalada Boorame waxa ka bilaabay boqor Buurmudow oo kamid ah odayaasha dhaqanka beesha Habar Jeclo boqor Buurmudow wuxuu sheegay inay garab istaag u muujinayaan beesha Gudubirsi isagoo sheegay in beesha Ciise haba yaraatay aysan degin gobolka Awdal oo si sharci darro ah ay ku joogto waxa kulan gaar ah oo waliba saacado badan qaatay yeeshay boqor Buurmudow iyo sidoo kale suldaanka guud ee beesha Garxaj oo suldaanka guud ee beesha Andhehe Samaroon suldaan Cabdirashiid Doodi kulanka oo saacado badan qaatay ayaa beesha Habar Jeclo waxay ballan qaaday in hub ciidan iyo gaadiid dagaal ay ku taageerayaan beesha Gudubirsi si ay deegaanadooda uga saaraan beesha faca weyn ee Ciise kulanka waxa la soo warinayaa inuu ahaa mid ay albaabada u xiran yihiin iyadoo oo bahda warbaahintu aysan xoga dhameystiran ka helin laakiin baaritaan aan sameeyay dhowrkii saac la soo dhaafay ayaan ku ogaaday in boqor Buurmudow oo wakiil ka ah beesha Habar Jeclo uu gaarsiinayo beesha Samaroon hub iyo gaadiid tan oo ka dhigan in mar kale duulaan lagu qaadi doono dhulka beesha Ciise weyne Ciise dabcan iyagu waa ay ka warqabaan colaadda iyo sidoo kale fidnada ka imaanaysa dhinaca beesha Habar Jeclo taasoo keentay ayaa la leeyahay in ay feejignaan dheeraada galaan beesha Ciise iyada oo kulan degdeg ah goordhow uu dalbaday ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim in beesha Habar Jeclo hadda ay dagaalka ku soo biirto waxay ka dhigan tahay in beesha Samaroon aysan wali ka samrin dhulka ay qabsadeen ciidanka beesha Ciise gaar ahaan dixda Sheekh Awaare oo magaalada Boorame u dhow iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimaada dad badan oo arrimaha la socdaahi waxa ay leeyihiin Ciisuhu xilligan waxay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo ay doonayaan inay kula dagaalamaan cid walba oo gardarro ku soo qaada dhulkooda aayahooda iyo mustaqbalkoodana isku dayda in ay qalqal geliso xogaha wararka iyo macluumaadkan heleeno sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in dhowr iyo 20 saac la soo dhaafay ay jireen cabsi la xiriirta in ciidanka beeshaas Ciisuhu ay weeraraan magaalada Boorame dabcan kulanku markuu uu soo dhamaaday muuqaalo kooban oo la helay waxa ay muujinayaan labada nin oo isla qoslaya oo waliba midba midka kale uu u dhool cadeynayo taasi oo ku tusinaysa in beesha Habar Jeclo xilligan ay doonayso inay toos ugu soo biirto dagaalka ka dhanka ah beesha faca weyn ee Ciise waxaan la hadlay mid ka mid odayaasha dhaqanka beesha Samaroon anigoo uu weydiiyay waxa ku soo kalifay in beesha Samaroon ay habar wacato beesha Habar Jeclo waxaana odaygu ii sheegay in xilligan iyagu aysan u baahan laakiin Habar Jeclo ay rabto inay ciidan lacag iyo gaadiid dagaalba ku wareejiso beesha Samaroon si ay ciidanka beesha Ciise uga saaraan dixda Sheekh Awaare tuulada Galmadoobe tuulada Durdur iyo sidoo kale tuulada Cabdiqaadir dhammaan deegaanadaas hadda waxa ku xarakoonaya oo haya gacantoodana ay ku jirtaa ciidanka faca weyn ee Ciise kuwaas oo dharaar iyo habeen deegaankaasi gacanta ku haya sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadkan heleeno hore daawadayaal waxaan idinku sheegay Samaroonku in ay garab ka heli doonaan ama beesha Garxajis ama beesha Habar Jeclo wayna dhacday oo hadad muuqaaladeena dib u tixraacdaan waxaad arkaysaan sida beesha la yiraahdo Habar Jeclo ay u garab istaagtay beesha la yiraahdo Ciise haddaba Ciise
iyagu iyay garab ka heli karaan. ciise waxayna garab ka heli karaan beesha ogaadeen, dhulbahantaha laftirkooda garab bay ka heli karaan. haddii xaaladdu sidaa kusii socoto dabcan wax badan baa isbedelaya oo ku saabsan xaaladaha jira, iyada oo la arki doono ayaa la leeyahay isbedello waaweyn oo dhinac walba leh, taasi oo dabcan xaaladda gelin karta meel halisa. dhinaca kale ugaaska guud ee beesha ciise, ugaas mustafe maxamed ibraahim, ayaa goordhow oo daqiiqado ka hor ah waxa uu kulan deg deg ah iskugu yeeray inta badan saraakiisha ciidanka beelweynta faca weyn ee ciise. kulanka wuxuu ka dhacayaa magaalada diridhabe. qaar badan oo saraakiisha ka mid a hadda waxay gaareen magaalada la yidhaahdo diridhabe oo dowlad deegaanka ka tirsan oo xuduudda ku taalla. waxaa laga wada hadlayaa duulaan abaabulan oo ay rabaan inay soo qaadaan garxajiska waandhehe habar jeclo iyo sidoo kale beesha samaroon. in habar jeclo iyo samaroonku ay isqaataan ayaa waxay tahay ayaa la leeyahay qorshe dhagartiisa wata oo ay rabaan inay abaabulaan qolyahan kale ee diidan horumarka iyo xasiloonida. saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka beesha samaroon waxay tilmaameen in ay la socdaan islamarkaana ay il gaara u yeelan doonaan dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda, iyaga oo sheegay in ay ka warqabaan isbahaysiga ku soo wajahan beesha ciise. ciisuhu dhowaan dagaaladii ugu dambeeyey ee dhacay dabcan waxay gaareen guul, weliba waxay gaareen guul istiraatiiji ah oo weyn oo aan la iska indhatiri karin, taasi oo ay dad badan u arkeen inay ahayd guul muddo la naawilayey, muddona ay damceen ama ay ku raajoogeen beesha faca weyn ee la yidhaahdo ciisuhu deegaanadooda inkastoo ay hadda xajisteen oo seylac marka laga yimaado duleedka magaalada boorame lagu dagaalamayo, haddana xogta macluumaadka iyo wararka la helaya waxay tilmaamayaan in dhowr iyo 20kii saacee lasoo dhaafay ay jireen macluumaadyo iyo faahfaahino la xiriira in ay xaaladdu faraha ka bixi karto, islamarkaana laga cabsi qabo inay dagaalo dhacaan. gudahaan saaxiibyaal wararkeena intaas bay ku dhan yihiin. media waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno. sida uu aragtid duulaanka weyn ee ku wajahaan beesha la yidhaahda ciisaha, qaybta commentiga inoogu reeb. aragtidaada waa noo muhiim saaxiibyaal. soo dhowaada meel kastoo aad joogtaan. sharaf iyo karaamo.